assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ku soo dhowaada saaxiibayaal kanaalka dhugasho. magacaygu waa cabdiraxmaan suudi. waxaan maanta idiin soo gudbinayaa qiso aad u xiiso badan. qisadaani waxay dhex martay dhakhtar gaal ah iyo wiil muslim ah, waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. waxaa jiray dhakhtar reer galbeed ah kaasoo garanaya luuqadda carabiga, wuxuuna maamulo ka ahaa hay-ad dadka gaalaysiisa ee laga leeyahay Yurub. wuxuu ka soo safray magaaladiisii wuxuuna yimi mid ka mid ah dowladaha Carbeed si uu u gaalaysiiyo dadkeeda islaamka ah, isagoo ku dhuumanaya safar caafimaad oo uu ugu magac daray mashruuca la dagaalanka cudurrada aragga. dhakhtarku wuxuu ahaa mid aad u maskax badan. wuxuu u tegey labadiisii saaxiib ee ugu dhowaa, wuxuuna u sheegay inuu marka hore ka bilaabi doono dadka aqoonta yar ee jaahilka ah, sababtoo ah iyaga way fududahay in la qanciyo. dhakhtarkii wuxuu galay safarkiisii wuxuuna tegey tuulo yar, wuxuuna kula kulmay wiil yar oo ari jira ah. waalidkiis ayaa dhakhtarka u sheegay in wiilkoodu uu yaqaano dhowr jus oo ka mid ah qur'aanka, haddana uu wado inuu dhammaantiis wada xifdiyo. dhakhtarkii wuxuu la fadhiistay wiilkii isagoo baaraya araggiisa. baaritaankii kadib wuxuu weydiiyey wiilkii, maxaad u xifdinaysaa qur'aanka isagoo aad u adag? wiilkii wuxuu ku jawaabay, qur'aanku waa mucjiso uu Ilaahay noogu soo dhiibay nebigeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, wuxuuna na baray allaah, diinta islaamka, jannada iyo naarta, iyo wax kasta oo wanaagsan. nebigeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi, Ilaahay qur'aankan sababtiisa wuxuu kor ugu qaaday ummado badan, wuxuuna hoos ugu dhigay kuwo kale. dhakhtarkii wuxuu wiilkii ku eegay indho la yaab leh, wuxuuna bilaabay inuu shaki iyo shubho kaga furo diintiisa. wuxuuna ku yidhi, miyaadan arkin in marka qur'aanka la xifdinayo lagala kulmo dhibaato badan? wuxuu ka kooban yahay qur'aanku 30 jus iyo aayado badan, waxaana jira aayado isku mid ah oo soo laalaabta. ka warran haddaan aayadaha soo laalaabta ka saarno qur'aanka, maadaama ay isku mid yihiin, wax faa'iido ahna aysan ku soo kordhinayn. markaa ka saarno aayadahaas waxaa yaraanaya jusaska qur'aanka, waxaana awoodaysaa inaad xifdiso qur'aanka kariimka ah. dhammaan dadka islaamka ahna waxay noqonayaan kuwo xifdisan kalaamka Alle. dhakhtarkii ayaa saas ku yidhi wiilkii ayaa la wareegay hadalkii wuxuuna ku jawaabay, hadalkaagu waa mid qurxoon oo lagu qanci karo. dhakhtarkii khiyaanoolaha ahaa aad ayuu u farxay, wuxuuna is yidhi wiilkii wuxuu ku dhacay shabaqaagii. laakiin wiilkii isagoo sii wata hadalkiisii ayuu yidhi, waxaan qabaa hal su'aal dhakhtar. dhakhtarkii ayaa yidhi, waa maxay? wiilkii ayaa yidhi, jidhkaaga miyaan laga helayn xubno isku mid ah oo soo laalaabta, kuwaas oo aan wax faa'iido ah lahayn, sida labada gacmood, labada lugood, labada dhagood, labada indhood, labada keliyood, labada sanbab, iyo kuwo kaloo badan. maxaad isaga jiri weyda dhammaan xubnahaas dheeraadka ah si uu u yaraado miisaanka jidhkaagu, cunnadaada iyo cabbitaankaagana aad uga faa'iidaysato, intay aadi lahaayeen xubno isku mid ah oo aan wax faa'iido ah lahayn? dhakhtarkii wuu wareeray aad buuna u naxay, wuxuuna naftiisa hoos ugu yidhi isagoo wadnihiisu garaacmayo, maxaa ka xanuun badan jawaabta wiilkan? haddii jawaabtaani ka soo baxday afka wiil ummi ah oo aan aqoon lahayn, sideebay noqon kartaa jawaabta dadka aqoonta leh? daqiiqado kadib wuxuu la xidhiiray dhakhtarkii saaxiibadiis, wuxuuna amray in ay rartaan qalabkooda si degdeg ah, muddo koobanna ay ku laabtaan dalkoodii. haddii ay sii joogaan halkaanna, maalmo kadib ay shaacin doonaan inay islaameen, waxayna ku dhawaaqi doonaan shahaadateynka. wax yar kadib dhakhtarkii waxaa u yimi wiilkii ummiga ahaa walaalkiis oo ahaa aqoon-yahan jaamacad dhigtaa. markuu ogaaday in dhakhtarku walaalkiis kala hadlayo arrimo ku saabsan qur'aanka, wuxuu jeclaystay wiilkii inuu dhakhtarka kala hadlo mucjisooyinka qur'aanka, kuwaasoo culimmadu ogaadeen sannado kooban ka hor. wuxuuna yidhi, waxay sheegeen baaritaanno cusub in xaddiga oksijiinta oo hoos u dhaco mar kasta oo qofku kor sii aado, sidaasna waxaa noo sheegay qur'aanka kariimka ah muddo 1400 sano ka hor. ilaahayna wuxuu ku yidhi suuradda ancaam. dhakhtarkii aad ayuu ula yaabay markuu maqlay aayaddan, wuxuuna go'aansaday inuu wax ka baaro diinta islaamka, wuxuuna joojiyey dacwaddii ahayd inuu gaalaysiiyo dadka. waxaa intaas ku dhammaaday saaxiibayaal qisadeennii quruxda badnayd. runtiina waa qiso mudan in lagu cibro qaato. fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan like saar, channelkana subscribe dheh si uu kuu soo gaaro muuqaal walba aan soo gelinno. mahadsanidin.